ما شاء الله ودوهي وأنا كما سنتهين وعتانك أقوى عدين حفيزكينا والله هذا هرت ugu faraxsanahay maanta in ay kooxdeena aado gobolaha waxayna ahayd in aan ciyaartooydeen niyadda u dhisno ay aadaan gobollo ka mid ah gobollada Soomaaliya ay ciyaaro saaxiibtinimo ku soo dheelaan saas darteed aan u codsanay aan u helnay insha Allah waa markii ugu horeysay aan gobolada safar u aadno dhowr jeeraan xoogaa helnay casuumaad laakiin waqtiga noo suurtagelin waayey laakiin sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay aan u baxayno gobolada Puntland marka koowaad waxaan tegaynaa caasimadda Puntland Garowe kadib waxaan haddana boqon doonaa Qardho oo meesha ciyaaraha aan ku dheeli rabna waxaan dheeli rabnaa 3 ciyaarood insha Allah laba ciyaar oo laba koox oo waaweyn Horseed iyo kooxda kale oo ka dhisan gobolka Qardho ciyaarta saddexaad insha Allah waxaan rajeynayaa ciyaar oo ku ciyaartooy oo xabsiga inaan la dheelno waxaan boqon doonaa laba magaalo caasimadda Puntland Garowe midda labaadna Qardho si fiican ma sha Allah hadda waxaan rabnay 2 gobol ama 3 gobol wixii waqtiga oo noo suurtagelay inaan aadno laakiin xoogaa waqtiga dib nooga dhacay saas darteed aan hadeertaan u aadnay Puntland insha Allah sanad dambana waan rajeynaynaa inaan gobolada badankood aadno wallahi ajaanibteena aad ay u badnaayeen macalinka iyo 4 ciyaartooy waa maqan yihiin oo ayaga fasaxa loo diray maadaama waqti badan ay inta joogeen oo corona nagu dhacay saas darteed laakiin mid ajnabi kale hadda waxaa noo jooga oo aan la soo wareegnay oo safarka nagu heliya laakiin ciyaartooydii oo championka ee dhammaantood waa la fasaxay way maqan yihiin waxaan wadnay Soomaalida oo kaliya aad weyn muhiimadda waxay tahay in aan kooxaha la dheeleyno ama gobolada aan tagayno isdhexgal aan sameyno saas darteed kooxda u wadnay maadaama haddaba ay noo joogaan ciyaartooy oo gobolada ka imaatay haddana waxaan rabnaa insha Allah Puntland ciyaartooy in fiican aan ka soo heli doono maadaama ay kooxda koox weyn tahay insha Allah waan ku soo dhaweynaa